may kooy magaaladan xudur ama gobolka Bakool wafd balaaran oo soo gaamiyow madaxweynaha koonfur galbeed Cabdi Xasan lafta gareen oo iska jara wasiiro taliyaal ciidan xildhibaano taasoo ujeedadii hayti ani arday linkuur gala xaalada nololeed ee bulshada ka dhaqan gobolka Bakool oo waayahanba una qabatayn ka hayan nabadiidka shabaab taasoo arday la fadahay si degdeg ah ani linku jawaaba caqabadaha iyo dhibaatooyinka arday bulshada ka hayan shabaab isla markaas haddana leen fadhi talaabo degdeg ah sidii leen qaado fadi oo arday bulshada la ka badbaadiyo may arday la kulmay oo madaxweynaha la kulmay noocyada shal duwan oo arday bulshada oo xog wareysi dheer kadib may la go'aansaday ani dawlad shacab ciidan liiska duubam isla markaasna liin suruma sidii arday liin badbaadi fadi shacabka ka dhaqan gobolka Bakool shabaabna liin ku cirib tirafadi isla markaas may hadda abaabul sheeka jarna ama wadna sidii arday 10 liin ka dhigafadi shabaab isla markaasna shacabka kalsoonidii dawladda ka qabeen arday korlinka qaada muhiim ah ani arday liiskaalada oo arday shacabka magaalada gobolka maamulka degmada kan gobolka ciidamada maamulka koonfur galbeed dhammaan arday liiskaalada may aaminsana oo dhamaanteen haljaha ambani ani lagna nin kor korna waana arday guuleysadaan waana muuqata daqiiqado hadda iyo waqtiyada dhow oo hadda socdon may arday la dareemo doone isbedel insha Allah gobolka Bakool may rajeey ani arday ciidamada may amaray guutada sagaalaad aniyo heegan galaan waqti kasta iyo daqiiqad kasta may la fulii doone waajibaad isla markaas laka badbaadiyo shacabka unan dhaarani ee Soomaaliyeed oo arday dulinimada ka hayan shabaab linku dulqaada arintaasi waajib qaran oo nasaarangu lagna ma ku heebaysadaaw oo la sey waan sadanka dhaqso badan fuliyaan jawaabteena way arag doon hob ilaahay halkarka tan kala oo taliyaha guutada arday sheegi caqabadaha oo arday hortaagan dhinaca qalabaynta ciidanka wala un koyniya kumadaata aniun ogaan xogogaal annagan baahiyaha ciidamada qabaan wala un koyniya kumadaata waana la gudoomaan madaxda noo sareytana la wadaaga doon waan isbedel la suubiye isbedel dhab ya la suubi doon nooc kasta oo arday baahiya jarta ana tan ma eraw marka mayka kalsoonadaasana madaxdiin qaranka iyo maamulka koonfur galbeed oo isku duuban may diyaarin ayina ani arday baahiyiin wal ku qabada waan wala liin socdo oo liin teeginyu mayna arag doontaan insha Allah isbedel degdeg ah oo ilaahay halkarka shabaab may haday arago haytaan lan yoogna waxaan male haba yaraatee wal arxan oo bini aadanimo oo diin oo nooc kasta leh oo yoog hadigee ka dambeeyta ma jarto hada meel la teegni lan kasta arago hay may arday shacabka Soomaaliyeed anka baaqay meel kasta oo surooga gaar ahaan gobolka Bakool iyo koonfur galbeed ani dhammaan liin suruma sidii arday heeriyada dadkan oo nacaybka iyo arday jahliga iyo faqriga huwan in isku dul qaado fadi ya arday anka baaqay mayna muhiim ah ani arday dana una leen una qabsana lan arday nin kooyo male lan meel kala nin gudiga male maylin baahanya unu iska talan wal kasta awoodna dhaqaale haysana huba haysana riga qabna
ما يلين بهنيا just only أكلية إني أردي قرشة مدايسن يو أردي ثلاث صح إني للدير قرشة مدايسن يا أردي دبعتوين كلهم كوباكورة مركب ماي أردي كباقي بلشة نوعية شلدون إني أردي حجر دامس إني إسكسوبين لتين وايو ورانك هذا الجماس إسكوفيري بريه هذه حكينا كذا أضاء اللي جد هبروك حماي لكن ورانكاس أوجا هذه حكينا كذا مركب ماي لين أني نفكرنا أو نفكرنا مستقبل كان أولادتين يو شرفتتين أني نفكرنا أن أقولنا أفكري أو أرد أنها نوجد أو دلية والله كلام مسكنتيس أرد استعمالها هاي أني أقولنا أن أسقطنا ما آمن سنة one day حلمالا أني أرد كسفة كورنا لما ميلكست أو تاكا كست أو دولك كينه وأفرت الرود أو توجا أني أرد حلمالا كسفة كوريا آمن سنة مركب ما اللي بهنيا شلادية إنه نقرش ماذا يسندرنا وأن والكست أودنا مركب كالسوني يعني ما هو بعد فيري ده ميل ده كبر شيء ما اللي بهنيا يعني هذا كالسونات